السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا ترسيقا كان عصب ساقعة كسو أبسان سو تشيدينتي أما وربحينتي حلبان كونغرس وومن إلهام عمر وكسو تشيده كونغرس كا مريكان كا iyadoo run ahaantii kaga qayb gashay xafladdii caleemasaarka maamulka Puntland ee ka qabsoontay magaalada Minneapolis State of Minnesota dalka Mareykanka halkaasoo run ahaantii ay ka soo jeedisay soo jeedin aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed hadday halkaa ku sugan yihiin iyo hadday daafaha adduunkaba ku sugan yihiin aad loogu riyaaqay oo gaarsiisan ilaa dunida daafaheeda kala duwan iyo dalkii hooyaba ereyada ama oraahda iyada ay soo jeedisay xildhibaan Ilhaan Cumar waa mid salka ku haysa taageerada Soomaaliya iyo Soomaalida guud ahaan iyo ilaalinta ciidooda iyo baddooda taasoo duulaan ee ku tahay dowladda Itoobiya saan ogsoonahay xildhibaan Ilhaan Cumar waa xildhibaan asalkeedu ka soo jeedo dalka Soomaaliya balse xildhibaanka Koongareeska Mareykanka oo ah qof Mareykan ah oo u dhaartay dalka Mareykanka isla markaasna waxa aad loogu riyaaqa ah inay muujisay taageero buuxda oo ay u hayso Soomaaliya iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo nuxurkii hadalkeedu ahaa inay difaacayso midnimada Soomaaliyeed iyo ciidda iyo badda Soomaaliyeed kaalin kasta oo siyaasadeed ee arrinkaas kaga hortegayso ee qaadan doontona ee diyaar u tahay nuxurka hadalkeeduna ahaa intaan joogo oo xubin ka ahay golahaas isaga ee Mareykanka waxaan ka shaqeynayaa sidii arrinkaas isaga looga hortegi lahaa ciidda iyo badda Soomaaliyeedna loo nabadgelin lahaa saan tilmaamay waa arrinkaas isaga lagu diirsado oo loo riyaaqo balse arrinkaas isaga ama soo jeedintaas iyada ama mowqifkaas isaga ee xildhibaanad Ilhaan Cumar taagan tahay ma aha mowqifkii ugu horreeyay oo ku salaysan danaha Soomaaliyeed ee laga haya xildhibaan Ilhaan Cumar iyadoo la ogsoon yahay inay marar kala duwan macnihii garab istaag iyo taageero u muujisay danaha Soomaaliyeed ka sokow intaasna danaha Soomaaliyeed ka sokow danaha kale ee inagu aadan oo ina khuseeya laftoodu hadday noqoto arrinka qadiyadda shacabka Falastiin oo ay si mug leh oo cad oon madmadow ku jirin looga hayo xildhibaan Ilhaan Cumar inay taageero siisay shacabka Falastiin ayna ka soo horjeesatay marar badan xadgudubyada iyo weerarada dhanka shacabka Falastiin ee ka soo jeeda maamulka Israa'iil iyadoo run ahaantiina kala kulantay weeraro kala duwan oo aad u halis arrinkaas isaga balse muujisay karti iyo hufnaan ee kaga hortagtay arrimahaas dhammaan taasuna xitaa heer ay sababtay in xubinnimadeedii ama shaqadeedii in arrinkaas isaga uu dhaawac ku yeesho iyadoo ahayd ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee Mareykanka arrinkaas daraaddeedna booskaas isaga
ee u weyday balse ay tahay qof kartideeda leh oo aan ka qowmamayn arrinkaas isaga ah welina kaalin ugu jirta una hagar baxda kiisaska iyo qadiyooyinka xaqa ah hadday noqoto taa shacabka Falastiini hadday noqoto mid Soomaaliyeed iyo mid kale oo guudba ah run ahaantii soo jeedintaas iyo ereyadii madashaas iyada ee tilmaaman ka jeedisay xildhibaan Ilhaan Cumar waa mid noqon karta baaq loo jeediyey maamulka Itoobiya ee garwadeenka ka yahay Abiy Ahmed oo si cad ugu muujinaysa in meel walba oo ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda ee ka soo xidhmayso dowladda Itoobiya dalka Mareykankana uu mowqifkaas isaga ah ee faragelinta iyo xadgudubka uu ku hayo dalka Soomaaliya uu ka taagan yahay kaalin diidma ah oo arrinkaas isaga aanu taageero ku heleen bulshada Soomaaliyeedna ee halkaa ku kasbatay kuna kasban doonto mar kasta taageero dibadeed iyo saaxiibayaal dibadeed iyo hoggaamo siyaasadeed oo dibadeed oo u hagar baxaya arrinkaas isaga ah ee khuseeya xadgudubka iyo faragelinta ee Itoobiya ku hayso dalka Soomaaliya run ahaantii haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo gudaba waa arrin laga filayay waa taageero laga filayay waa mowqif laga filayay xildhibaan Ilhaan Cumar oo mudan qadirinta iyo mudnaan in la siiyo oo had iyo jeer u taagan u heelan difaaca xuquuqda Soomaalida noocay noqotoba ha noqote hadday tahay mid ku eg dalka kan Mareykanka gaar ahaan state of Minnesota oo laga soo doorto xildhibaanada iyo hadday noqotoba carrigii Soomaaliyaba la ogyahay kaalinta ay ka geysato iyo doorka ka ciyaarto xildhibaanadu Ilhaan Cumar arrimaha Soomaalida runtiina lagu qadarinayo arrinkaas isaga ah daawadayaal waa anigoo Khaalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo ka lamid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu